السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت الشرفت له وإذن سلامي دمانتي ملك سجوكتان هدي أنا قد داونيسيت كنال كنا يوتيوب كالي اس اونلاين أما أنا قال صعدو فيسبوك بيج كنا كبرو مركز صحة كلنا سودو إن شاء الله فيديو جينا مانتو وحكو سوق قادم دونا سيد الله استعماله مايكروسوفت وورد تمبلتس وعاسكو داي دونا إنا وحير كشيغنو فايدوين كولي هاي قاوب كلا دوان أما تمبلت نوعيدا كلا دوان sida loo isticmaalo sida loo naqshadeeyo ilaa dhamaadka video hadii aad sii joogtid insha Allah waxa kula wadaagi doonaa si aad u samaysan karto naqshad ku gooni ama template ku gooni ah oo aad mar kasta u isticmaali karto si aad maaragtay waqtiga u beeqaamiso. haddii aad ku cusubtahay kanaalkeena YouTube-ka LS Online fadlan soo dhaw had iyo jeer kanaalkan waxaan kusoo qaadanaa video lagu baranayo teknolojiyada sida kuwan kale video dhiirigelin iyo kuwa naga soo dalbataan oo markaas video ku soo sameeyno waxaan leenahay waa maasantiin dhamaantiin ku hore u taxana iyo ku cusub sida wanaagsan engagement u sameeysan commentiyada dhiirigelinta leh iyo maaragtay su'aalaha aan soo weydiisan oo markaas isku dayno in video ku soo sameeyno aad iyo aad ay u maasantihiin markaas ay loobin in aad kanaalkan subscribe ku noqoto si videosh ugu dambeeyay ku soo gaaraan sidoo kale asxaabta la wadaag si ay kan ugu faa'iideystaan ana iloobin in aad like nagu taageerto dhinacaada wax ma ka ahan laakiin anaka waxaan oo tahay sharaf iyo dhiirigelin si soo diyaarino video kale aad iyo aad u toy badan waana maadsantahay videogan maanta ha inoo bilowdo. Okay, videogan insha Allah maanta waxaan isticmaali doonaa Microsoft Word oo 2023 waxaan ku isticmaali doonaa Mac. haddii aad isticmaalaysid Microsoft Word kuwii hore oo ka horeeyay ama ka doqsanaa kuwan ama kii ugu dambeeyay oo aad ku isticmaalaysid computer Windows dhammaan wax badan oo isaga mid yihiin template waa template sidoo kale haddii aad isticmaalaysid maaragtay Excel ama PowerPoint waxyaabahaas oo dhan aykan waxay leeyihiin template dhammaantooda isku si ayaa loo furaa laakiin isticmaalkooda ayaa kala duwan iyo waxa loo adeegsado. videogan maanta insha Allah waxaan rajaynayaa inaa kaga bogan doonto wax kasta ugu baahan tahay templateska Word. Okay, templateska wax kale ma ahan waa naqshado hore loo soo diyaariyay oo maaragtay loogu talagalay in hore ka isticmaalno oo wax yar ka bedelno. faa'iidada leedana waxaa kamid ah in maaragtay documentiga aad soo saaraysid ama aad rabto inaad dadka la wadaagto in ay ahaadaan kuwa oo isku mid ah oo fontiga iyo colorada iyo wax oo dhan ay diyaarsan yihiin xitaa daabacada u diyaarsan oon u baahnayn howl badan inaad geliso wax kale u baahan tahay in aad qoraalkaada maaragtay ka dhigto kuwa custom oo aad leedahay logoada ahaan leed sawirada ahaan leed ama qoraal ku ugu horeyn marka aad soo gasho Microsoft Word gudaha marka aad soo gasho qaybtan dambe ee hadda marka furay Word waxa ay soo muuqanay barnaamijyada ugu dambeeyay aad furay recent home marka joogto qofka login ku ah qaybtaas bidix sare ayaa ka arkaysaa templates qaybtan midig dhinaca sare haddii aad fiiriso waxa ku qoran more templates make list waxyaabo badan la soo geliyay oo inta uu isticmaalka badan la leeyahay ayaa lagu qiyaasay ama qof kasta wixii oo marka ugu dambeeyay doortay ayaa loo soo dhaweeyay oo maaragtay u diyaarsan markasta. Okay, haddii aad rabo template yaal fara badan qaybtan sare ayaa tagaya midig marka furo waxaa soo baxaya template yaal aad u fara badan mid kasta gooni iyo waxyaabo gooni ayaa loo isticmaalaa kulli isku mid maahan mid kasta howl gooni ayaa loo isticmaalaa calendar ayaa jira waxaa jira make a list write a journal creative an outline newsletter way badan yihiin flyer haddii aad rabo wax plan ku saabsan qorshe oo kale plan ayaa halkaas ku qoraya waxaa soo baxaya wax kasta oo plan ku saabsan healthcare business plan professional service business plan home business plan way badan yihiin planayaal badan ayaa soo baxaya. sidoo kale haddii aad rabo inaad qoro resume ama CV resume waa soo gaabin karaa inaad wada qoro u baahni xarfaha u horeeya markaa qorto way kuu soo muuqanaysaa resume yaal fara badan oo diyaarsan ma u baahnid inaad meel kale ka raadisid ama aad lacag ku bixiso inta ay ku diyaarsan yihiin wax kaliya u baahan tahay in aad wax ka bedesho oo aad markaas save ku samayso ama soo daabacdo ama aad sii dirto. Okay, hadda waxaa ogaanay meesha laga helo Microsoft maaragtay templateska haddii aad rabo mid kamid ah inaad isticmaalo su'aal ahaan midka ugu horeeya modern inta ku taala bold modern resume colorkaas bluega waa ka helay midka rabto qaadan kartaa hadda waxaa isticmaali doonaa isku dayi doonaa midkan inaad doorano oo aad wax ka bedelno kan ayaa maaragtay ku shaqayn doonaa markaad doorto waa la calaamadeeyay blue ayaa fuulay kadib hoostan hoose dhinaca midig ayaa waxaa la soo dhigay create
haddii aan rabo double click oo ku siin karaa laakiin waxaa taabanaya create okay markaa create taabtay waxaa liisoo furay pagekii aad doortay oo templateki aad furay ayaa liisoo saaray meeshaan waxaa ujeedaa qof wejigiis ayaa saaran qof maaragtay waxaan dhan ujeeda waa boss Ellis waa place holder waxaan dhan waa bedeli karaa magacayga sawirkayga profilekayga waxaan dhan waa ku qoran karaa tusaale ahaan haddii aan rabo inaan wax ka bedelo meesha rabta ayaa tagaysaa name magacayga ayaa ku qoraya Ali Maxamed Cusmaan okay title job title soo gaabinay hadda waxaan aad maaragtay qoraalkan waxa rabta ku qoran kartaa waa on boss Ellis education kala duwan ayaa maaragtay sheegan kartaa master school university Stavanger waa magaalada jaamacadda ka baxay iyo waxyaabaha barato dhan ayaa meeshan ku qoran kartaa teleefankaada contactigaada hobbigaas waxa jecesha oo dhan waa ku qoran kartaa meeshan haddii aad rabto in aad soo geliso sawirkaaga hadda sawirkaas ayaa dooranaysaa ma u baahna sawirkan waa qof kale waa delete ayaa iska taabanaya markaa tuuro waxaa tagaya insert waxaa u baahnaa inaad sawirkayga soo geliyo waxaa tagaya insert kadib waxaa tagaya pictures ayaa furaya kadib waxaa tagaya picture from a file sawirada meesha ku kaydsan ayaa tagaysaa tusaale ahaan midkan haddii aad soo qaato sawir meesha igu jiray desktopkayga sawirada meesha ku kaydsan adiga og hadda sawirkan ayaa meesha keenay waa sawirkayga okay haddii aan rabo sawirka inaan wax ka bedelo oo maaragtay muuqaalkiisa waxaa tagaya picture format oo fiirso markaa textiga taabto picture format meesha ma joogo taabkaas waa taab cusub oo kusoo kordhaya waa taabanaya picture format ayaa imaada meesha kor markuu imaado waxaa tagaya picture border waxaa tagaya weight line weight 3 points lineka waxaa ka dhigi karaa blue okay sababta blue u doortay wax kale ma ahan waa fontiga qaybtan ku yaal ayaa blue ah blue madow xigeen ah inaad doortaa si maaragtay consistent u ahaato oo waxa isku ekaadaan waa far kala duwan guduud iyo madow iyo cagaar ma isku keeni kartid qalad ayaa meeshaas qoray construction ka daarteed marka sidaas markaa qortay hadda waxaa sameynay oo kaliya magac ayaa ka bedelnay sawir ayaa soo gelinay nambarada waxaa rabtaa ku qori kartaa kadib waxaa soo gaarnay heerkii aan maaragtay aan kaydin lahayn maadaama aan wax ka bedelnay oo waqti aan gelinay si aan nooga dhumin waxaa waqti aan ku isticmaalnay waxaa tegaynaa qaybtan sare file save ayaa tegaynaa save markaa tagto meesha rabto ayaa ku save garan kartaa hadda desktop ayaa gelinaya Ali Maxamed CV adii kala daaro okay kadib save ayaa taabanaya documentigii magaciisu wuu isbedelay Ali Maxamed save CV ama resume haddii aad u baahdo fartan inaa wax ka bedelo colorka waa calaamadeynaya farta bidix ayaa ku qabanaya ilaa meesha rabo markaa gaaro waxaa taabanaya font color blue madow xigeen ah haddii rabo bold ka dhig okay saasoo ku deysan karaa okay taasi waxay ahayd sida aan fontiga ama sawir soo gelin karno oo aan maaragtay haddana u keedin karno save markasta aan maaragtay keedino wax ka bedelno save waa ina taabana haddii kale waxaa u badan tahay inuu naga dhumo ama waxaa samayn kartaa auto save haddii uu kuu leeyahay waa ku xiran kartaa okay haddii aan rabo templatekan inaan ka dhigo mid ii keydsan ama template gooni oo cali templatekiisa u magac dari karo beri markaa furo meeshiis kasii wadi karo ama qof kale magaciisa ku qori karo haddii aad tahay shirkad oo soo saaro CV-yadoo kale oo aad dad kale u qoraysid waxaa fiican marka in aad template kuu diyaarsan aad ku qorqortid markasta kalarada kala bedeshid fontiga maaragtay qaabka qoronta kala bedeshid laakiin naqshad ahaan inay kuu diyaarsan tahay waa muhiim hadda waxaa isku dayaa in aan maaragtay templatekan keediyo kaydka sidiisa waa noocyadu kala duwan yahay save ayaa sameynaa hadda documentigan waxaa ku kaydina computerkeena laakiin haddii aad tago save askan waxaa u bedeli karnaa documenti kale sida PDF ama waxyaabo kale ayaa u bedeli karnaa laakiin waxaa rabnaa save as a template ahaan ayaa u kaydinaynaa hadhow meesha templatedyada dhan ay ku jiraan ayuu soo gali doonaa
save as template markaa tago على CV template okay save على CV template ayuu markaas ii joogaa tusaalahan haddii aan rabo in aan furo template kale cusub waxaad tegi karaa tusaalahan file from new template okay template yaal shiilan intay yaaliin laakiin kaa save gareey waa kana على CV template okay template yaasha ku kaydsan oo aan markasta ku diyaarsan ayuu kasoo muuqan doonaa okay haddaan baahni keeni hore ayaa noo yaala meeshaan sidaasna waxaa ku yeelan karnaa template inoo gaar ah oo aan markaa rabno isticmaali karno templateskana sidaa soo sheegnay waxay ku fiican yihiin waqti ayay noo keydiyaan oo muddo kooban ayaa waxaa ku daabici karnaa dokumentiyo badan oo wax yar in laga bedelo u baahan kalarka sawirka ama qoraalada fontiga sida u yaal ayaa waxaan ku bedelaysaa okay markaan waxaa soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii videogeena maanta oo aan ku soo qaadanay sida loo isticmaalo Microsoft Word oo templateskiisa waxaan soo sheegnay faa'iidooyinka templateska qaababka kala duwan ama noocyada kala duwan ee templateska sida loo naqshadeeyo sida farta loogu bedelo fontiga sida sawir loo soo geliyo iyo xataa waxaa soo qaadanay sida aad u samaysan kartid naqshad ku gooni ah oo aad markasta u isticmaali karto si aad waqtiga u kaydiso insha Allah videogan maanta intaas inoo joogo haddii aad ka heshay fadlan ha iloobin markasta in aad videogan like saarto asxaabtana aad la wadaagto hana iloobin in aad batoonkaas guduudan subscribe-ka aad garaacdo subscribe aad taabato marar badan ama like-ta ii badisaan maanta waxay tahay dhiirgelin si usoo diyaari videoyaal kale aad iyo aad u badan haddii ay jirto su'aal ama talo iyo soo jeedin commentiga hoose sidoo kale ha iloobin waana mahadsantahay insha Allah waxaa inoo balnaa video kale